haddaan tusaale ahaan yar ka soo qaadanno sayidka sadiiradiisii sayid nuur cabdilla kaldhayare wuxuu dhashay taariikhda islaamku markay ahayd 1321 oo la mid ah 1902 bisha taariikhda ingiriiska 1902 wuxuu ku dhashay deegaanka la yiraahdo Malayko oo degmadan hadda Garba la yiraahdo ee gobolka Nogob ka tirsan bilka shanaad halkaas uu ku koray waalidiinkiisu waxay kamid ahaayeen dariiqadii Axmediyada sayid maxamed weyteen xirigiisii buu aabihii Cabdilla Kaldhayare isaga u duceeyay nuuraan damin iyo nasli aan goyn baan kugu duceeyay buu yiri kadib markuu afar jir gaaray dugsiga quraanka lagu daray oo walaalkii Sheekh Aadan Cabdilla Kaldhayare uu sameeyay uu hayay dugsiga quraanka markuu isagoo 10 jir gaaray quraanka xafiday inta ka horeysana khawaariq fara badan iyo cabqariyad fara badan baa lagu arkay iyo khasaa'is fara badan oo gogol xaad u aha inuu noqon doono shakhsi aan caadi ahayn 11 jirkii markuu gaaray khawaariq caan ahayd oo cali cadihi la yiraahdo dhulka caan ka ahayd oo kashfi ahayd baa laga arkay wuxuu toos u arki jiray arwaaxda ambiyada iyo malaa'ikta iyo awliyada ayuu la kulmi jiray isagoo yar 12 jirkiisii isagoo gaarin dugsi quraan buu qabtay oo walaalkii uu qabay yiri fiiq buu ku qabtay dad fara badan buu quraanka baray dadku baray waxa kamid ah Xaaji Cabdiwaahid sheekh la dhihi jiray fiiq caan ka ahaa kadib 13 jir markuu gaaray fiiq buu ka tagay wuxuu u xirayay Soomaaliya wuxuu u horeeyay gobolka Baydhaba sheekh la dhihi jiray Macallin Mursal Disow oo ah macallinkii ugu caansanaa dhulka Baydhaba uu kalkii hore quraanka iyo culumtiisa ka ijaaza qaatay kadibna wuxuu u gudbay Markacadey wuxuu tagay xaruntii Sheekh Cali Maayo sheekh dariiqada Axmediyada halkaas oo tarbiyada ruuxiga ahna uu ku galay علومتنا وكزياد سدي ودير دبادنا وحكوسا نقضي مقدشو تعليمتا سير رسمي أو قلي فنيات اللي هو آخر سنة هي الديني جهاي ودم ببرتي شيخ هذا محمود شيخ اللي جري كتاب النثر الجواهر كالها لها شيخ هذا العودي هنا اللي يقانو شيخ محي الدين معلم مكرم إمام اللي جري عالم في السواحل اللي جري يا مشايخ يسوقوها وين كملها وحكبرتي مشايخ الدريقين كسوفيا ضرنا ولا حريري وكقاطي سنة كطريقة إن كستو وشيخ الرسمي هاي تربية شيخ عبد القادر الجيلاني هاي وأرواح الأولياء ده إني الرئيسين تربية ده لقى قاطو وأي دت مريدين عربيان كتبت التصوف قدام بيكوتها الله دت جاهلين هو أنا قون با يا لقى يا باينا كهلان يعني أرواح الرئيسين وح تربية يسوي وحنفعده أو تسوفك كويا الله كتابات عاد كهري كرتاه وحاكم مدها تقريب الوصول كتاب كان اللي سيد أحمد زين الدحلاني اللي تسوفها وحاكم مدها كتاب كان اللي يراهدو كتاب كان اللي يراهد البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى سيدنا علي حافظ غماره إليه هي كتابات تسوف قردن بعد جاية مركا كتاب كتفهيمات كان اللي يراهد وله وريو الله الدهلوي باكم مدها يعني ولي هري ولي دنبيو ودن زمان هنا ينسيسو قارين أو تربيين كرو مركا تربية دي الرسمي جها هي مشرب كيس الرسمي عبد القادر الجيلاني بها لكن انتساب كطريقة وكقاطي سنة وحريره طريقوين كالصوفية دي جيس أفريقيا كجرانه هو قاطي سيدكو طريقة قادرية دها قيبت زي العيادة شيخ محمود مع العمري شيخ محمد نور الدين بكقاطي طريقة ويسية دها الشيخ أويا يوكقاطي طريقة أحمدية دها الشيخ علي مايو شيخ طريقة أحمدية هو كقاطي طريقة الرفاعية دها سيد مرواس الدعاني بكقاطي كل طريقوين هو كنت تسوي طريقة حاتمية دها سيد سليمان بكقاطي ابن عربي كواتر ستا كل يعني عارفين تضم بالله كل مي كدب مركو مددر هلكا وحرو كوها وحمر كتبت كو اخرسان هي فنيه دي لغا اخريها هي ودان وبرتي wuxuu soo wareegay kulliyadii fiqiga baar dheere halkaas oo kutubta fiqiga mudoontoodan ku xafiday sida manhajka iyo irshaadka dushu ka xafidsanaa sayidku axaadiita sida jaamicu sagiirka iyo kale tan halkaas lagu xafidi jiray ku soo xafiday kadibna wuxuu ku soo noqday deegaanka wuxuu ku soo horeeyay gobolka Afdheer halkaas oo dugsiga quraan ka qabtay oo arda fara badan ka kiciyay gaar ahaan waxa aad u soo dhaweeyay Sheekh Cabdi Mursal ninkii la dhigi jiray mujaahidka ay caalimka ahaa kadibna wuxuu soo gudbay gobolka Nogob waxa aad u soo dhaweeyay oo xaruntiisa ku soo degashay Maxamed Hamiin caalimkii la dhigi jiray dariiqada Axmediyada ka mid ahaa oo isna xaaskii labaad u guuriyay xaaskii hore tan gobolka Afdheer buu ku guursaday kadibna
وشهروبي أو مركو قبل كان سوق علي عارفينتي عالمينتي أردن ببرتي شيخ محمود مع العمر بقول كل مي شيخ عبد الله القدوي بقول كل مي حاج علي تمعسول له كل مي شيخ حسين فرو له كل مي شيخ عبد الرحمن أفقري له كل مي مشايخ دي أردن بو كان فايدة يستوون فايدة قابيه عنك هاي الدين تو أردن بو زيارتي سيد هذا إني شيخ حسين بالي يقول لما تكها شريف إبراهيم إمام كمركا على بيت قبل كا نقيب كوجها بالله كل ما طريقة علوية هي نكت سعودي كل أولادي هالكا جوكتي بعوضة إنه باور وين له أو ولي سوكر هي يا وضع قري يسوي مركا عارفين تيادو يقانان لكن تدوينه أي نادو أقولين أي عارفين تيادن مرقرها قبل كعنك كوهي يصير الدور هي وغيريودين كل جودنا وحكوا دردارمان إنه نكاس قبلوه كان نقن دانو كدبنا مركب ولاية سبع ظاهرتي طريقة نموسي وحاوه الرئيس عبد الله عمر وغيره قطبها على جدودها كدب مركا عارفين تجيس أفريقيا دوكتي وردان وحي إعلامية نكاس قطب زمان إنه يهي جبوتي يحمر يو هرجيسة يو بربرة يو جارسة يو كل يعني جيس أفريقيا وردان بلغسو عادي مركا وحول نقضي مرجع جود إمامك جود الصوفية ده وحب الله مركا حركة دي تجديد دي جهيد oo isugu jirta inuu la dagaalamo qabyaaladda haday tahay qabyaaladda qabiilnimo iyo haday tahay tariiqanimaba aad buu la dagaalamay wuxuu dhiirigeliyay waxbarashada wuxuu dhiirigeliyay wax kasbashada wuxuu dhiirigeliyay hadalnay mashaayikhda kale iyo dariiqooyinkiisa soo jiidkooda wuxuu baabiyay isfahan la'aantii dariiqooyinka iyo u dhaxaysay fuqahada maadaama uu faqiihina ahaa suufina ahaa dowr adag buu halka ka ciyaaray wuxuu isku dibariday dariiqooyinkii oo dhan wuxuu isku dibariday culimadii oo dhan wuxuu isku dibariday shacabkii oo dhan nahda diiniga buu aaboo noqday sida darteed waa loogu ictiraafay inuu yahay sheekh geeska Afrika عارفينta oo dhan u ictiraafeen culimadii oo dhan u ictiraafeen manhaj fiqhi iyo tasawuf iyo kasab midaysana ayuu ku baaqay kii oo noqday marka kasaayidka noqday dhulkeenana dariiqada ugu ballaaran ay dariiqadiisu ku noqotay isla markaa dariiqadiisu waxay la dagaalantay tacasub wax dariiqo ka xigta ma jirto laana dariiqo kasta meesha ku abtirsanaysay sanadkiisu uu yahay isagii baa aha inta dariiqaaba uu bixin jiray wuxuu dhigi jiray dariiqada qaadiriyada waan ku shuuroobay calanka Abdul Qadir Jilani baan sidaaye laakiin aanu dariiqo kasta waan bixinaya naqshbandiyan ninkii rabo waan siinaya khaluutiyan ninkii rabo waan siinaya shaadiliye waan siinaya ahmadiye waan siinaya rufaaciye waan siinaya sheekh guud oo Sufyaan ahaanu marka sidaasuu diinta in badan ugu soo khidmeeyay cimrigiisa Ilaahay waa barakeeyay 91 buu gaaray duriyadiisina Ilaahay waa barakeeyay isagoo nool budadkiisu dhowr boqol gaaray muridiintiisa Ilaahay waa barakeeyay oo fikirkiisa iyo wasankiisa meel kasto maray cimriga barakaysan dabadii taariikhdu markay ahayd 10kii bisha Zako waa munaasabadan maanta aanu fadhino Caashura oo taariikhdu islaamku ay ahayd 1411 oo lamid ah 1kii bisha August 1990kii waa maalin caan ah habeenkii uu wafaaday habeenkii uu budayay waa habeenkii Ciraaq Kuwait qabsatay wala wada yaqaana ayuu geeriyooday waxaana lagu aasay meeshii isagu sii ishaaray inay noqon doonto deegaankiisa rasmiga ah oo xagal halkaas oo xarunta dariiqadiisa noqotay munaasabadiisana waa la nooleeyaa sanad kasta يوم عاشوراء dunida oo dhan baa laga dhigaa gaar ahaan dalalka geeska Afrika oo dhan baa laga dhigaa xaruntii weynina waa la isugu tagaa marka intaas aan ku soo koobayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم انصر نفعنا بالرضوان علي وامدنا بالأسرار التي أودعتها